Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Maxamed Deeq Cabdallah, joogana Muqdisho. Walaalkay, waad mahadsan tahay. Waxaan qabaa laba su'aal. Su'aasha koowaad, cirka waan garanay, balse caadka muxuu yahay? Qaac miya daruurahan maalin walbana waa la arkaa. Intee ayay ka yimaadaan? Haddii qaac aysan ahaynna, maxay ayay yihiin? Daruuruhu waxay ka samaysmaan uumibaxa biyaha, neefta bani'aadamka uu neefsado, iyo xayawaanada iyo xitaa dhididka dhirta. Ilayska qoraxda markuu biyaha ku dhaco qayb ka mid ah biyaha inaga oo aanan ka banqabin ayay uumibaxaan. Uumibaxanina si kastoo inagu aad inoola yar yahay, haddana marka lagu fakaro guud ahaan dunida waa mid samayn kara daruuro waaweyn. Daruurta sida asalka waxay xambaarsan tahay molekulo biyo ah. Molekuladani biyaha ahna cirka ayaa malaayiin toon ah iyagoo ayay ku wada kulmaan. Marmar waxaa dhacday qabow dartiisa inay u gudbaan heerka qabowga ee barafka. Waxa ayna leedahay daruurta midabyo kala duwan. Daruuraha qaarkood waa kuwo furfuran oo caddaan ah, qaarkoodna waa kuwo gaduud ah, halka kuwa kalena mugdi ama madow ay yihiin. Mid walibana in midab ay yeelato waxa ay dadku u ishaartaa cimilada adduunka sida ay noqon doonaan. Systemka isku dheelitirnaanta ee alle koonkani uu sameeyay mid ka mid ah waa in biyihii kululaaday ama biyihii uumibaxay in hawada iyaga oo qaac ah ay dul socdaan. Xilli kadibna isla biyihii ayaa hab roob ah iyagoo dunida ku soo daata. Dhulka oo dhanna waxa uu noqdaa mid doog ah. Si kooban, daruuraha oo dhanna waxa ay ka imaadaan biyaha badda, webiyada, hawada iyo waxyaabaha inagu aynu isticmaalno.